waa tuma JoY xiiso gabadha diinta Kiristaanka ka faafisa dhulka Soomaalida gaar ahaan Somaliland. dood badan ayay dhalisay kadib markii ay timid Somaliland. waa gabar u dhalatay dalka Nigeria. waxay ka soo shaqaysay arrimaha waxbarashada iyo sidoo kale arrimaha diinta. Okay, for those of you who don't know, I'm a teacher. So I have 3 stories tonight from the Bible. waxay u soo wareegtay Somaliland iyadoo noqotay maamulaha jaamacadda Barwaaqo. waana jaamacad ay dhigtaan dumarka kaliya, taasoo la aasaasay 2019. kaniisadda The Invitation ayaa horay u martigelisay JoY xiiso ayaa sheegtay inay JoY Somaliland u tagtay faafinta diinta Kiristaanka 18 July 2021. qoraal ay qoreenna waxay ku sheegeen inay duco raacinayaan wadaadada JoY oo u tagaysa Somaliland howlama diimeed. kaniisadda ayaa maanta masaxday qoraalkaas iyadoo sheegtay inay JoY aana shaqo ku lahayn, waxaana mar kale la qoray qoraal kale. raaligelin ayaan ka bixinaynaa qoraalkii 18 July kaas oo aan si qaldan uga sheegnay ujeeddada JoY u tagaysa Somaliland. qaladkaas annaga ayuu naga dhacay, JoYna shaqo naguma lahan. arrinta JoYna weligeedna kama shaqaynin. kaniisadda ayaa qoraalka lagu yiri ka qaybgalkeedii qalinjabinta jaamacadda ayaa dad badan ka war heleen. Warbixino University and the fact that this institution is established in Somaliland speaks to the goodwill and its commitment to women. Our mission in Warbixino University is very simple: to empower Somali women to become professionals who drive development in their communities. xafladda waxaa joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxay ka mid tahay maalmahan aad u faraxsanahay jaamacad u gaara hablaha oo tababarka ka qayb qaata. waa tallaabadii horreysay aynu qaadnay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta. madaxweyne Biixi ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo fikirka ah in si yar lagu gaaloobayo. dadka qisaska ka qaba markuu qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah uu yahayba uu la kulmo ninka Maraykanka ah ama ka Ingiriiska ah ama ka Yahuudiga ah ama ka Hindiga ah caabida lo'da inuu baqayna galo dadkeena in la gaalaynayo teena laynaga saarayo. dadka qaar ayaa ka falceliyay hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. dadka qaar waxay qabaan fikrad ah Soomaalidu waa dad boqolkiiba muslima, cidina ma gaalaysin karto wax kasta hadii la sameeyo. fikradaasna waa khalad. waa la gaalaysin karaa marka uu Soomaali gaala ayaa meel walba ka hadasha. madaxdana waxaynu leenahay ilaahay diintiisa ninka ka mas'uula. arrimaha noocan waa arrimo jira weyn. qofka isla qof gaala oo hargeysa ka shaqeynayaba ayaa quraanku u dhigaya marka uu khalday. Soomaalida qaarkood ayaa ka falceliyay qoraalkay kaniisadda soo dhigtay Twitter-keeda. arrintaa ma noqon doonto mid la aqbali karo. waxaana sawir ka qaadanaynaa boostigiina aad ugu ducaynayseen ku saabsanaa diinta faafinteeda gudaha Somaliland. waxaan u gudbin doonaa laamaha dawladda ee qusayso. mar kale JoY waxay arrinteeda baaritaanayso dawladda. waxaana xasuusnaataan qoraalkiina hore noqon doona caddayn siday sheegtaba haweeneydu waxay Somaliland u joogtaba diifaafin ayuu mar kale yiri qof ra'ligiisa ka dhiibanaya aaladda Twitter. inada ilewi doni wad barashodi adaka kadatay Warbixino University inshallah manasmahadsanid. maxaa soo socdo ka qorson maxaana ka socda gudaha Somaliland. muuqaalkan xaqiiqdiisa waxa iska leh K Media. aniguna waa Maxamuud Milano.